السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحران جنة الكمركة للسعودية وهذا أدية وما سنتين وقال كان وحن ربعنا إن ذي كل وذاقو محكمة السراء أمريكان كا أو ما أنت ديدي أنت بدن عن شوره ترام وكسر رجي ودمدا عالم ككونت المانتي شرع الدرو أو إن أودي سنة هين أو أود عن شور كسر رجيست ودمدا عالم كا أي كونغرس كويس كليهين هذا بقى مسجر صورة أيها كسر جيستي تعرف كي مدحوين ترامب imise ayaa ogolaatay madaxweyne Trump oo ka hadlay arintaasi isla markaana ku tilmaamay in sharaf darro ay tahay in maxkamadda sare ay go'aankaasi soo saarto canshuur kalena ku soo rogay haddana mar kale isagoo sharci kale adeegsanaya wadamada caalamka arimahaasi ayaan idin la wadaagayaa iyo sidoo kale xildhibaanad Ilhaan Cumar iyo xildhibaanad kale oo magaceeda la yiraahdo Angie Craig oo bishii hore loo diiday inay galaan xarunta ciidamada ICE dadka marka ay xiraan ay geeyaan buildingka la yiraahdo Whipple building oo maanta ay booqdeen haddaba maxay ku soo arkeen Ilhaan Cumar ayaa arimahaasi ka hadlaysa sidoo kale waan idin la wadaagayaa balse marka hore soo dhawaada madaxweyne Trump ayaa maanta si aad ah uga carooday go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Mareykanka taasi oo maxkamadda sare ay ku diiday ku dhawaad 70% canshuurihii madaxweyne Trump bishii Abriil oo labadii bishii Abriil ee sanadkii hore 2025 uu ku soo rogay wadamada caalamka madaxweyne Trump wuxuu yiri wadamadan intooda badan Mareykanka ayay ka faa'iideysan jireen oo canshuuro fara badan ayay ka qaadi jireen alaabta Mareykanku uu dhoofiyo iyagana Mareykanka alaabta ay u soo dhoofinayaan canshuurba lagama qaadi jirin ama wax yar ayaa laga qaadi jiray marka wuxuu yiri si aan u cadaalad sameeyno inaguna waa inaan ku soo rognaa wadamadaasi inta canshuur ah oo iyagu ay nagu soo rogayaan haddaba arintaasi waxay dhabar jab weyn ku noqotay inta badan wadamadii lagu soo rogay canshuurahaasi iyo waliba ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxdhaxaadka ah ee Mareykanka maadaama lacagahan taarifka waxa laga qaadaa shirkadaha alaabta u soo dhoofiya Mareykanka shirkadihiina lacagta shacabkii Mareykanka ay saarayeen taasina waxay sababtay in sicir bararku uu aad u sareeyay labadii sano ee la soo dhaafay waxyaabaha daruuriga ah oo dadku ay iibsadaan sida raashinka ay aad u sareysay taasina marka waxay sababtay in qaar ka mid ah gobolada Mareykanka ay arintaasi dacwad ka gudbiyaan sidoo kalena ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhaxdhaxaadkana ay dacwadaasi gudbiyaan wadamo sidoo kale caalamkana oo Mexico iyo Canada ay kamid yihiin dacwadahaasi ay gudbiyeen marka maxkamadihii hoose waxay ku tilmaameen sharci darro ilaa iyo maxkamadda sare ayaa la isla tagay marka Trump go'aankan waxa uu ahaa mid si weyn loo sugayay waxa sidoo kale ku xirnayd lacagtii $2,000 ahayd oo Trump uu yiri shacabka Mareykanka ayaan siinaya haddii maxkamadda sare ay ii xugmiso dhinacayga oo ay tiraado waa sharci lacagahan taarifka oo madaxweyne Trump uu soo rogay laakiin maadaama hadda maxkamaddii sare ay diiday dawladda Mareykanku lacag 175 bilyan ka badan ayaa ka soo gashay alaabahaasi Mareykanka loo soo dhoofiyo hadda marka lacagahaasi maxaa laga yeelayaa inkastoo hadda maxkamadda sare aysan go'aan arintaasi ka soo saarin mashirkadaha ayaa loo celinaya dawladdu maxay sameynaysaa marka lacagtii $2,000 ahayd oo Trump uu doonayay shacabka inuu siiyo meesha ay ka baxaysaa maadaama lacagtaasi dawladda Mareykanka taarifkaasi ka soo gashay ee hadda sharci darro tahay dawladda Mareykankana ay qasab ku noqonayso in ganacsatadii ay dib ugu celiso haddaba garsoorayaasha maxkamadda sare waa 6 kamid ah ayaa waxay sharci darro ku tilmaameen 70% lacagahaasi taarifka ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay wadamada caalamka garsoorayaashii maxay kale yihiin oo ka soo horjeestay arintaasi oo sharci darro ku tilmaamay waa gudoomiyaha maxkamadda sare ninka la yiraahdo John Roberts waxa sidoo kale ku jira 2 garsoore oo Trump uu magacaabay 4 sano oo hore uu madaxweynaha ahaa kuwa ka soo horjeestay ay ku jiraan madaxweynuhuna maanta waxa uu yiri waa inay isceebaystaan waan ka niyad jabsanahay yiri waxa kamid ah Neil Gorsuch oo Trump uu magacaabay 4 sano oo hore madaxweynaha iyo Amy Coney Barrett oo 2020 markii xilka uu ka sii dagayay iyadana uu magacaabay labaduba Trump waa ay ka soo horjeesteen waxa sidoo kale ku jira 3 garsoore ee muxaafadka Sonia Sotomayor Ketanji Brown Jackson oo madaxweyne Biden uu magacaabay oo gabadha kaliya ee madowga ah ay ku jirta 9 garsoore ee maxkamadda sare iyo Elena Kagan 6daasi garsoore ayaa diiday oo sharci darro ku tilmaamay taarifka madaxweyne Trump uu ku soo rogay madaxweyne Trump awoodaha uu isticmaalay waxa kamid ah sharciga la yiraahdo Emergency Economic Powers Act oo 1977 la sameeyay marka garsoorayaasha maxkamadda sare waxay yiraahdeen Trump
awood uma lahan oo Congress-ka ayaa iskale awoodda canshuur ku soo rogista wadamada caalamka saddexda garsoore oo marka Trump ku taageeray canshuurahaasi waxay kala yihiin ninka isaguna Clarence Thomas Lira oo ninka madowga ah oo kaliya oo isaguna ku jira sagaalka garsoore ee maxkamadda sare Brett Kavanaugh isagana Trump ayaa magacaabay iyo Samuel Alito marka saddexdaasina waa ay ku taageereen Trump marka maadaama majority-gi 6 ay ka soo horjeesteen majority-ga ayaa la raacaya isla marka go'aanka maxkamadda uu soo baxay Trump waxa uu la shirayay gudoomiyaasha gobolada oo iyada nafteeda khilaaf weyn oo ka dhasho la leeyahay Trump kuwa Republicanka oo kaliya ayuu casuumay kuwa ay kamid yihiin midka Illinois kan Maryland kan New Jersey iyo sidoo kale kan Massachusetts waa uu ka tagay marka isagoo kulankii ku jira ayaa loo sheegay Trump waxa la leeyahay wajigiisa caraweyn ayaa markaasi ka muuqatay markii kulankii uu soo dhamaadana shir jaraa'id ayuu qabtay Trump waxa uu sheegay inuu aad uga niyad jabsan yahay go'aanka ka soo baxay maxkamadda sare madaxa meel ka koreyso la salaaxo ma lahan marka haddii maxkamadda sare ay diiday waa sidii loo diiday canshuurahaasi marka waxa uu sidoo kale sheegay in ay isceebeystaan ay yihiin garsoorayaasha go'aankan soo jeediyay isagoo ammaanay saddexda garsoore isaga taageertayna waa uu ammaanay haddaba Trump oo arrimahaasi ka hadlayayna waxa uu yiri kale madaxweyne Trump isagoo sharci kale oo ku jira dastuurka oo adeegsanaya ayaa waxa uu sheegay in 100% canshuurada dheeraad uu ku soo rogayo wadamadii horay uu ugu soo rogay canshuurahaasi oo haddana 10kan ay ka sii sareyso marka waxa uu yiri wadamadaasi inta badan waxay ka faa'iideysanayeen wadankeena hadda intooda badan waa ay dabaaldegayaan laakiin waxaan idin xaqiijinayaa in dabaaldegaasi uusan sii socon doonin isagoo arrimahaasi ka hadlayana mar kale madaxweyne Trump oo 10% canshuuraha dheeraadka oo wadamada uu ku soo rogayna kale waxaan ognahay howlgalkii ciidamada ay ka wadeen gobolka Minnesota in inta badan ciidamadii hadda ay isaga baxeen waxa la leeyahay ciidamo lagu qiyaasay ilaa iyo 500 ayaa ku sugan marka ciidamada marka ay dadka xiraan waxay geeyaan building dawladda federaalka dhisme ay leedahay oo la yiraahdo Webber Building oo Minneapolis ku yaala xildhibaano ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo iyagu dhinaca maadaama lacagaha ay Congress-ku ansixiyaan waxay dastuurku u awood u siinaya in xilliga ay doonaan ay kormeeri karaan bishii la soo dhaafay xildhibaano ay kamid ahayd Ilhan Cumar Angie Craig iyo Kelly Morrison ayaa loo diiday xaruntaasi inay galaan haddaba maanta ayaa loo ogolaaday waa tii wasaaradda amniga gudaha amar soo saartay 7 maalmood ka hor waa inay noo soo sheegaan xildhibaanadu haddii ay doonayaan laakiin sida sharciga waxay tahay xilliga ay u baahdaan inay tagi karaan oo ay kormeeri karaan marka waxba halkaasi lagu qarinayay Ilhan Cumar iyo sidoo kale Angie Craig ayaa maanta loo ogolaaday in ay galaan laakiin maxay kala soo kulmeen xaruntaasi dadka lagu xirayay ka hor inta aan gobolada kale Texas iyo Louisiana aan loo kala qaadin oo sida ku meel gaarka ah loogu xiri jiray Ilhan Cumar waxay tiri ugu dambeyntii horta isku dayo fara badan waa naloo ogolaaday inaan xarunta gudaha u galno meel kastana waa nala tusay laakiin waxa la yaab leh tiri hal qof oo meeshii ku xiran ma aanan ugu tagin oo aan la hadalno markaan weydiinana waxa naloo ku jawaabay 30 daqiiqo ka hor ayaa dadkii ugu dambeeyay halkan laga qaaday marka waa la faaruujiyay dhamaanba xaruntaasi hal qof ma uusan ku xirnayn sidoo kalena waxaa jirta in la nadiifiyay oo kaliin laga dhigay maadaama xildhibaanadan report ay gudbinayaan oo Congress-ka ay ku celinayaan marka waaba la sii nadiifiyay oo meesha waxay u ekeyd meel nadiif ah hal qof oo ku xiranna ma aanan arkin Ilhan Cumar waxa ay tiri hadda isku celcelis ahaan 20 qof ayaa maalintii ciidamada ay soo qabanayaan sida darteed ilaa 500 oo askari ayaa wili ku sugan gobolka Minnesota oo ciidamada ICE marka waxa la yaab lahayd in xaruntii dhan oo ICE marka dadka ay qabtaan ay ku xirayeen in xildhibaanadii markii ay tageen lagu yiri hal qofba kuma xirna waa tana bal arka dhammaan boqolalkii oo faaruqa ay tageen meeshii oo la sii hagaajiyay waxay tiri maadaama inaan soo socono la ogaa waa loo sii diyaar garoobay waana maxaabiistii dhanna meesha waa laga waday waana la sii nadiifiyay haddaba waatan xildhibaan Ilhan Cumar oo markii ay ka soo baxday kadib warbaahinta la hadashay kana warbixinaysa waxyaabihii ay ku soo aragtay buildingaas dhismahaasi federaalka oo ciidamada ICE ay maamulaan oo dadka markii la qabto lagu xirayay inta aan loo qaadin gobolada kale Ilhan Cumar waxay tiri iyadoo ma santiin asxaabta intaan markale kulmi doono nabadgelyo